waxaan ahay aabba dhiman maanta idaacadda goobjoog waxaan u soo booqday oona nasiib ah u yeeshtay in aan maanta dhibka aniga haysto aan uga hadlo muddo badan ayaan raadinaya qof jaaniskan is siiyo marka ugu horeysa aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin wanaaggan iyo fursaddan qaaliga ay i siiyeen mideeda labaad walaalayaal ummadda Soomaaliyeed ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qofka kulli waxaan ahay aabba dhibaataysan oo magaciisa la yiraahdo Saalax Sani Yuusuf Cali ku nool magaalada Muqdisho dib oo aad iyo aad muddo 9 sano aan ku hurdi waay aan ka harsi waay ay haysto waxaan ahay aabba dhiban muwaadin Soomaaliyeed taariikh xun oo waxa igu dhacday ama i haysato qof kasta oo muslim hadii loo sheego dabcan jid oo asiga gilgilayso Allahumma musta'an marka walaalayaal aniga oo hadda ka hor xabsiga Sacuudiga ku jiro tarxiil taariikhda markii ay ahayd 2010kii ayaa waxa igu dhacday wiil yar oo 8 bilood jiro iyo gabar yar oo 1 sano iyo bar jirto ayaa tarxiilka la soo galay markii la qabtay xabsiga Sacuudiga la ii galiyay ayaa waxa la igu yiri meeshan xabsiga sida xaqiiqadan waa run xabsiga waa meel weyn oo nadaafadiisa aysan wanaagsaneyn oo uraysa waaye dabcan waxa la igu yiri ilmahan yar yar ka ah waa la igu sawir aniga iyo labadii cunug wiilkay iyo gabadhiisa aan u ahaay ayaa la igu sawiray waxa la igu yiri ilmaha yar yar xanaanada meeshan waa xabsi weyn ilmaha yarka lagu ma hayn karo dabcan aniga marka waxaan ahay nin maxbuus ah wax allaal wixii lay amro waxaan ku qasbanay inaan qaato waayahan dhaa ilmihii wiilkii oo 8 bilood jiray iyo gabadhii sanad iyo barka jirtay waa la iga wareejiyay meel waxaa jirta xanaano caruurta yarka lagu hayo marka aabaha oo wado ilmaha because aniga gabadha ilmaha iyo dhashay daruuf jirta aawadeed ayaa Yemen ayaa isla joognay ilmihii ana waxa ku wadhi ku ballan inaan Soomaali aagi cala daruufta nolosha meesha ayaan cajibi weysay inaan ilmahan Soomaali aan geeyno kadib arrizq ala Allah oo ilaahay rizq aduurka ilaahay u raadsano ilmihii markii laga reebtay sidii muddo marka meesha aan ku jiray waxaa dhacday maalmaha kamid markii la gaaray xilligii diyaaradda ee bixisay ayaa magacyada xabsiga ku jiro qof ayaa loo yeerinaya waxa la yiri Saalax Sani Yuusuf Cali aabay gacantan taagay waxa la dhiibay warqadii aan ku baxay ayaa la dhiibay bas waxa dhacday warqadii waxa arkay labadii cunug iyo gabadheedii wiilkii sawirkeeda oo arkay wiilkii oo sawirka laga jeexay bas waxaan dhahay walaalayaal maxaa dhacan wiilkaygi aabay dabcan waa taqaanin maxbuus hadalka lagu yiraahdo hadaan qaadanin cid aad baanta wax ka qaadan kartid ma jirto alaa yaal cunugay way iska dhiidhiibay 3 askari ay ahaayeen hebelo way wada qoslay hebelo cunugiisa aawar hebelo cunugiisa aabay dabcan abar ay indheeyay ilmo ka imaadeen ilaa wuxuu qadar waxaan dhahay marka aniga hilibkayga ama cunugayga oo nolol ii geeri midna aan ku haynin halkan inaan ka baxo go'aankayga ma ayay ahayd bas waxay ugu dhahan marka aday ay ka falantaa hadii aad bixiis waa ina baxda hadii kale ina xabsi asku noqota xabsi ayaan ku laabtan baxay aniga dhahay muddo 20 casho ayaa xabsi ku dhax ooynay oo qof bina aadan oo yarxamo aan way bil qudratillah 20 casho marka xabsi ku jiro ayaan xisaabtamay waxaan dhahay maanta cunug gaadaan awoodka xoog badan ilaahay ahaan ayaa haysato bas haduu ilaahay oglaa yoom ayaam maalmaha kamid cunugaaga biidnillaahi kariim waa helees ayaa niyad ku dhistay cunugta ayaa shuban iyo matag iga dhacay waxaan dhahay marka cunugta ayaa laga haystaa yeesan dhicin aqliga qof saalax waa in aqliga adeegsataa cunugtan hadda khatar iga sii sugan yees cunugtan kaaga dhiman meesha anigoo walbahaarsan on raalli ka ahayn ayaa goobta diyaaradda oo laga raacay waxa nagu soo qaaday baska markii nagu soo qaaday askari ayaa baska la socdo oo qofka markay dad diyaaradda ay raacay ilaa diyaaradda qofku simaayo diyaaradda irideedan waxa taagan askari kale ayaga sawirkii ayaga way jeexeen in saddexdeen ayaa sawirka ugu nagala qaaday sawirka wiilkayga way ka jeexeen ayaga waxay ii keeneen aniga iyo gabadheeda oo kaliya ay sawir keeneen laakiin ay waxay iloobeen qadar Allah ayaa socotay waxay iloobeen saddexdii magac ilaa meeshan Salmo Saalax Sani iyo Salmaan Saalax Sani iyo Saalax Sani saddex qof bartaan ku qoran ayay waxay iloobeen marka magaca meeshan ku qoran ayay iloobeen sawirka wiilka marka jeexeen ayaa askariga diyaaradda ag taagna wuxuu ku yiri warniyo askariga kale ay wuxuu ku yirniyo meeshan saddex magac ayaa ku qoran laba qof ayaana socoto meey qofka saddexaad Salmaan Saalax Sani aaba lagu yiri
askarigii ayaa la qabtay garbkii oo diyaarad ag taagna ayaa gacanta la qabtay waxaa gooniyaa loola baxay allahu aclam waxa ay dhaheenna wax ayaga wax isku sheegeen okay ayay dhaheen aniga si ayaa diyaaraddii lagu saaray xaqiiqadii waxaa dhacday diyaaradda markii ay sii kacaysay ilaa maa hawada ay ka gasho waan fiirinayay meesha cunugeyga leegaga reebtay waan fiirinayay waxaa laakiin niyaddeeda ay ku qorneed wamal xayaati dunya ilaa mataaca alquruur allahay adduunka inta lagu noolaanayo wax yar ah haddii aan noolahay inaa cunugey oo xalaal yahay dhiiggay hilibkii waxaa ogaa maalmaha ka mid ah inuu ilaahay ii soo yeerin doono waan fiirinayay ilaa hoos diyaaradda ee ka kacda waan fiirinayay bilqudratillah waddankayga ee imaada isla xilligaasna awood waa yeela waayey qof wax ii qabato because aabbo waxaan ahay aad xaqiiqada daruufaysan yemanaan ka imaaday wax shilin oo isku furtay markaan muqdisho aan kasoo degaayay $1 jeebkayga kuma aysan jirin waalidiinteed ayaa u imaaday xaqiiqadii waalidkayga aabay waa oday 80 jir ah hooyadeen waa waayeel aaba wiilkii markay dheen aab neefsadeed ayaa iqaabay waxaan dhahay aaba wiilkii wuu iga geeriyooday because haddaan dhaho aaba wiilkii iyo hooyo aan u sheego xaqiiqada waalidka daruufaysan ay ahaayeen ma aysan awoodin maanta inay raadiyaan way walbahaari lahaayeen way murugoo lahaayeen balse waxaa isdhaha saalax adaa nin rag ah ninka raggan adduunyada wuxuu u joogaa rafaad iyo raaxa intaba u joogaa waxaan dhahay marka adiga leh ana nafsadayda ilaa xilligaas 9 sanadood ana nafsadayda iqaabahay aniga nafsadayda ku qarsanay waxaa dhacday inaan iska laabto aan laabto waxaan u laabtay yemen xamar xoogaa markaas maasha allah tabaaraka allah maanta dawladda Soomaaliyeed waxaa leenahay xaqiiqada lagu faani karo ayaa leenahay ma aysan jirin xaaladda maanta muqdisho markaas xilligaas waxay ahayd nusna dabcan waa iska warqabnaa inaan dabcan waa qof kasta Soomaali uu ogyahay muqdisho 2010 waxay ahayd dabcan ayada kala bar xoogaa barbalankeeda aad u badnaa waan laabtay waxaan ku laabtay yemen anigoo markaas salaada tukado alla bari jiray dhihi jiray cuniga hadduu hilibkaada xalaal yahay maalin buu ilaahay ku soo yirin doonaa meesheeda ayaa iska joogay alxamdulillah gabadhi xaaska ilmaha irash waxay u dhahay saalaxo wiilkeeni mee waxaan dhahay wiilka qadar alla ayaa nagu dhacday qadarta allana qof kasta way ku dhacaysaa annaga waxaan nahay bini aadan daciifaan nahay amar alla ayaa nagu dhacay ubadkaas shalay ilaah ayaa wiilkaasna siiyey insha allahu tacaala bedelkiisna ilaah noogu gargaaraya ha isdhiibin ha ismurjin niyadaada qabooji ayaan gabadha xaaskeyga ooga dhaadhiciyay inay taariikhdaas igu dhacday alxamdulillahi rabbil caalamiin xilligaas kadib 5 caruur ilaahay sii maasha allah tabaaraka allah iyo gabadhii hore Soomaaliya oo kale 6 caruura marka walaalayaal waxaan ahay aabba dhibaataysan oon hal habeen 9 sano oo dhalato aan hal habeen hurdo raacal aan hurdin maanta ma awoodo inaan baxo diyaarad aan hadda maanta awood aan lahaa inaan baxo diyaarad aan raaciyo Sacuudi tagi lahay ayaan dhihi lahay safaarad in loo kasta ayaan gali lahay waxaan dhihi lahay maanta cunugii ayaa iga maqan laakiin ma awoodo maanta subaxdii ayaan soo kacay ilaa 3 saac 4 saac mooto laba lugaaley ah dabcan waa ogtihiin nolosha dabcan qofka doosan waxba haysan rizq xalaal si kasta oo kugu soo galo inaad ku raadaysaa mooto laba lugaaley ayaan wataa ilmahayga subaxdii ilaa 4 saac $4 $5 waxaa helaya ilmahayga uga raadsadaa waa imaada waxaan wareegaa xafiis kasta waan garaacay alxamdulillah maanta ilaahay wuxuu ii saalay idaacadda goobjoog maanta madaxooda kor ahaato way jirtaa maanta idaacado badan oo muqdisho aan tagay oo isbuuc idaacado badan oo muqdisho aan tagay way jiraan xaqiiqadii aan qof bini aadan aan dulmin waxa ilaahay igu og yahay qof kasta marka uu wuxuu igu jawaabay ilaa aan daruuf ayaa iga muuqato balse qofka dooli bisan yahay gaari oo wato dabcan waa la soo dhaweynaa waa ognahay Soomaaliya kalimahan adduunka idil saas ka jirtaa balse qofka daruufaysan dabcan waa ogtihiin waxa wax ku taraa nin oo dhiig Soomaaliyeed amba oo ku jiro dhiig Soomaali ama damiir walaatinimo ama damiir muslimnimo oo ku jira maanta xaaladda ku suganahay ayaa og marka hore ma hadda Allah ay u sugtay markii labaadna idaacadda goobjoog ilaahay waxaan ka baryaa inuu dib iyo cadow ka haayo biidnillaahi kariim sharn ilaahay ma tusaayo marka walaalayaal cunugay waa ka sawirkiisa waxaa la yiraahdaa Salmaan Saalax Sani waa wiil Soomaaliya nasiib darradii adduunka qof bini aadan ku dhacdo tii ugu xumayd ayaa haysato 8 bilood asigoo jiro ayaa la reebtay 4 darbi xabsiga Sacuudi Arabiya tarxiilka ayaa awood leh igaga reebtay 8 bilood 4 darbi dhaxdiisa la geliyay ayaa teer iyo maanta 9 years 9 sano ayuu cunugeyga waxbarasho la'aan mustaqbal la'aan dib la'aan ayaa haysato please haddii uu jiro qof muslim ah amba qof dhiig Soomaaliyeed leh marka ugu horeysa waxaan halkaan la hadlayaa aabbaha Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maasha Allah madaalaha maskiin umciinaha meel kasta ay joogaan ra'iisul wasaaraheena Xasan Cali Khayre golaha wasiirada ra'iisul wasaarayaasha inta Soomaali oo maanta dhiig Soomaaliyeed oo ku jiro cuniga waa cunigeeni ma ahan aniga oo kaliya inaan aabba aan u hay
qof oo anfacaya allah iyo rasuulkiisa ayaa og waa nin Soomaaliya waa maanta nin aan awood u leeyahay faciisa waxay baranooyiin faciisa maanta heerka ay marayaan aan awood u lahayn waay ma yaqaan aabihii hooyadii ma yaqaano wadanka uu dhashtay ma yaqaano gacanta wuxuu ugu jiraa awood ilaahay oo dabcan ilaahay aan ahayn awood bini aadan ayuu ku jiraa walaalayaal haddii lay dadaalo Soomaali ama qof muslim meel kasta adduunka aad ka joogtaan waxaa idinka baryayaa in aad igu caawisaan sida wiilkayga habeen murdo hooyadiin ilaa hadda nolol i geer ay u dhaxaysaa laba miir ay iga tahay marna ayadii ayaan soo fiiriyaa hooyada waxay cuna leedahay ilmihayga ayaan u raadiyaa marne cunugayga ayaan raadiyaa anoo tabar daran oo maanta awoodin in aan xataa gaari ama wax inaan raaco aan meel ugu tag ma awoodo saacadaas ay la hadlaayo mootabel waalay ayaa wataa ma haysta xataa ayada xataa shidaalka wiil saaxiibkii hal door bar hadda aan ka dansan marka please ma ahan meesha wax u soo fariistay inaad dabcan qof ugu guriraas aaba dhibaataysan ayaan hilibkii ayaa iga maqan waxaa idinka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed aad tihiin in aad maanta iga seexanina maanta qof waliba wiilkiisa og yahay ducaa hal habeenka maqay ama oo ka soo dhaco dhibaatada oo mara waa wada ognahay marka waxa halka ku soo gabagabeynaya aaba dhibaataysan ayaan ahay yaan la iga seexanin nin kasto oo arka muuqaalkan daawado ama Facebook ka akhriyo please ha share gareeyo waa walaalkiina waxa maqan cunug saqiir ah maanta wax barashadiisa 9 sanadood 4 darbi dhaxdiisa qof bini aadan oo muslim arxama aan lahayn daruuf ayaa ka muuqato funaanadaas u jeedin maanta asiga eeyaha iyo mukalaalaha oo xabsiga raashin ku cuno hal meel ay isla seexdaan maanta cunug nin ogolaanaya ma jirto muslim gaal ahaado wiilkiisa oo dhibaataas nool waxa idinka codsanayaa please dad muslimiin aad tihiin cunugayga in laga seexanin sawirka ninka arko inuu share gareeyo please ala caawiyo aaba dhibaataysan ayaa ahay muhiim aan dhaqaalo in lagu caawiyo muhiim ah laakiin waxay muhiim in la soo duceeyo waxa muhiim ninka aaba dhibinto ku nool in la soo xariiriyo telefonkii uu arki doonto idaacadda goobjoog ayaa Facebook idinku soo qori doonto oo idin baryaa cunugayga la raadiyo yaa laga seexan mustaqbalkiisa waa lumay laakiin hadda waa ka gaari karaa haddii la soo badbaadiyo cunugayga qof muslim oo caawi ma waynayo laakiin hal ayaga soo bixiyo afartaas darbi dhaxeeyo